إن هذا دولة Soomaaliya loo doortay farmaajo looma dooranin inuu dalka geliyo chaos conflict argagixiso dawladda shisheeye iyo dubin maamulada dhisnaa looma dooranin waxaa loo doortay inuu shisheeyaha ka saaro ballantii uu naga qaaday markii doorashadu ku jiray waxay ahayd hantida ummadda Soomaaliyeed ee loo soo dawaro iyo ta laga qaado haweenka miiska la fadhiya diyaaradna lagu raaci mahayo hoteelna lagu seexan mahayo dawladaha shayana waa ka saari gabre dib dambe no more gabre baan isku ogeyn maxaa timid maxaa bedelay way qolka maxaa bedelay waxa bedelay waa ogtihiin waa inaad bedeshaan nidaamkaas waa inaad ku soo noqotaan dadku kolku islaayo civil war ka dhaco wadan nidaam waxaa lagu soo celiyaa dimuqraadi iyo federaal nidaamka federaalka ee lagu soo doortay waa inay ilaaliyaan Soomaaliya waxay u baahan tahay inay wax wada yeelato waxna kala yeelato laakiin uma baahna dawladda shisheeye iyo argagixis lagu soo guro iyo muxuu ahaayay dib 91 loogu celiyo no more 91 no more civil war no more Ethiopia no more Chidi بدونين iyo shirkada shisheeye waana mahadsantihiin wixii hambaliyadaana waxa ka hadli doona xildhibaanka بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجب الآن وسلامتين مركز كوبات يدمان شعبك الصوماليات مركز اللبات وحنجع لهاي إن أنو همبليو مدحوينها سيد حرطة أي حلاشة الله دورتي جبلان سيد أحمد محمد إسلام waxaan hubnaa inaad daawanayseen doorashadii Jubbaland ruux kasta live ku daawanayso maayn doorasho ka xor iyo xalaalsan ma inaan arkin markaa saddex fariimood baan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo mid waxay ku socotaa maamulka Jubbaland iyo shacabka reer Jubbaland midna shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed midna jaaliyadda Soomaaliyeed iyo Jubbaland waxaan ku bilaabay federaalka ummadda Soomaaliyeed kadib markay 1991 kii islaysay ee la kala tagay la kala irdoobay waxa kaliya lagu heshiiyay waxa uu ahaa in federaal ummadan iyo deegaankan iyo dalka Soomaaliyeed dib u soo dhiso ayadoo taa lagu heshiiyay caburin iyo qalalaase iyo maxay ahayd in la isxanibo oo la isxujo la isku noqday ummadda Soomaaliyeed xal uma aha waxa xal u ah walaalayaal in miis la isugu yimaado dawladda federaalka waxa looga fadhiyaa mandate-kii ahaa inay ummadda Soomaaliyeed isugu keento hab federaal ah kadibna doorasho hal cod iyo shakhsi in la isugu yimaado 2021 wali ma muuqato wadadaasi way ku guuldareysatay waxaan rabnaa inay dawladda federaalka ku soo noqoto qorshihii loogu talagalay labo dawladda federaalka waxay ku dhaqaaqday laba fal oo taariikhda Soomaaliyeed dhicin falkii koobaad wuxuu ahaa dhiibidii qalbi dhagax waxaad ogsoontiin muwaadin Soomaaliyeed taariikhda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ma dhiibin dawladda Soomaaliyeed oo central ma dhiibin taariikhda Soomaaliyeed falkii labaad ma dhicin dawladda Soomaaliyeed oo gobol Soomaaliyeed cuna qabateen saartay taariikhda markii koobaad baa Jubbaland la saaray hadda waa nasiib darro weyn waxaan rabnaa markay dawladda Soomaaliyeed dib u fiiriso danta ummadda Soomaaliyeed ay ka shaqeyso shacabka Jubbaland iyo dawladda Jubbaland si guud waxaan u leeyahay waxa aad rabtaan cidna idinkama hor iman karto idinka ayaa rabitaankiina ya mas'uulka waxa aad rabtaan idinka mas'uulka idinka raba waxaad sheeganaysaan ummadda Jubbaland way hadashay madaxweyne dooratay maamul bay dooratay waa lagu ixtiraamo walaalaha Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Jubbaland meel kasta joogaan waxa looga fadhiyaa inay taageeraan diyaar uma nihin ummadda Soomaaliyeed burbur 30 sano kadib in mar labaad burbur la geliyo diyaar uma nihin waxa 30 sano ay nagu qaadatay maanta meeshaan joognayna soo gaadhno inay maamulo la sameeyo 5 maamul baa la sameeyay saddex ka mid ah base waa la burburiyay South Soomaaliya galmudug iyo Hirshabelle inta waa la burburiyay labada maamul dhisnaa waxay ahaayeen Jubbaland iyo Puntland labadii in maanta la burburiyo sharaf Soomaaliyeed kuma jirto nidaamka dawladda Soomaaliyeed ee sharciga u yaalana ma ahan mandate-ka haysatana ma ahan
bal inay isu keentaan laga rabaa waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalkii inay keento Somaliland inay ka war doonto walaalo Soomaaliyeed weeye maqan weeye waxaa la rabaa inay walaalnimo ula tagaan bal shantii isla joogtay hadday kala dirto anigu ma garanayo meesha ay ku hagayaan ummadda Soomaaliyeed colaad badan baa dib u soo noqotay qaraxyadii baa dib u soo noqday ammaankii baa gacanta ka baxay maalin kasta waxaad aragtaan hooyo iyo wiil ganacsada oo yaayahaysa inuu gubanayo la qarxanayo hawlahaasaa looga fadhiyaa inay dowladda Soomaaliya inay maaragtay ammaanka wax sugto oo ay dowladdii iyo ummaddii Soomaaliyeed miis soo wada fadhiiso intaasaan kaga baxaya insha Allah tacaala Jubbaland guul Soomaaliya guul dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba guul iyo gobonimo aan rajaynaa insha Allah tacaala iyo midnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.